aan ku bilaabay goordhow waxaa soo gabagabowday doorasho loogu magacdaray hool baa intii dad laga buuxiyey mas-uuliyiin ay soo fadhiisteen oo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ay warqado musharaxnimo ay dhowr nin kala siiyeen, 2 nin weliba ay siiyeen, ayaa la yidhi waxaa lagu tartamayaa kursiga lambarkiisa uu yahay hoob 204 uuna ku fadhiyey xildhibaan isaaq cali subag uu ku fadhiyey oo Nairobi waqti xaadirkan ku sugan. musharaxiinta raggii warqadda qaatay xildhibaan waxaa ka mid ah wasiirka dekedaha ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur baa ka mid ahaa, ninka la wasiir TikTok madaxana furan loo yaqaano ayaa ka mid ahaa. raggii kale hoolka markii la soo galay gacantay taageen waxaa la yiraahdaa waa tanaasulay. markii horeba arrin la isku soo afgartay bay ahayd, kursiga ninkan baa isla lahaa laakiin waxba la iswaafajiray, ninkan baa markii horeba loo waday. shaxda markii horeba la gaaray baa waxay ahayd wasiir TikTok inuu ka mid noqdo xildhibaanada golaha shacabka ee waqtigoodu uu sii dhamaanayo, kursigana si rahana uu ugu sii fadhiyo oo uu ku banaysta 5 sano ee soo socota. xildhibaan marka ninka la wasiir TikTok wuxuu ku soo biiray xildhibaanada golaha shacabka. kursigan uu qaatay lagama dhimanin, la iskama casilin, lagama qaadin, ninkii ku fadhiyay baa jooga, nin xildhibaana dhalinyaro ah, daayar, aqoon-yahana, aan xanuunsanin, meel aan ku maqnayn ayaa horta kursiga ku fadhiyay. waa waxyaabaha la yaab kale ee horay Soomaaliya aan uga dhicin. qofaan iscasilaadiisa aan la haynin, qofaan loo haynin dambi oo xilka ku waayi karo, qofaan waxa weeye aan goyn shaqadiisa haysta, qofaan kursiga aan ka dhibanin in kursiga la iska qaato la waa baneeyay ninka kursiga. isagii baa hadlaya oo qaylinaya. wasabkii xildhibaanada ee golaha shacabka ee ay ku wada xiriirahayeen ee ay ku wada midaysnaayeen ayuu ka soo dhex hadlaya oo uu leeyahay kursiga waa layga dhacayaa, ma goynin, dembi ma gelin, iskama casilin, ma dhimanin, waan joogaa, kursigaas waa layga xoogayaa, xoog baa laygaga qaadanayaa, shaqadaydaan waan haystaa, shaqadaydii waan hayaa ayuu leeyahay oo wasabkiibuu ka dhex hadlaya. waa waxyaabaha la yaab kale wey. si kastay noqotaba waa taariikh qormaysa oo qofka sameeyey u qormi doonta oo meel u taalla weeye. maanta magaalada Baydhabo horta arrintaasaa ka dhacday. wasiir TikTok ayaana qaatay kursigaas ina adeerkii, isagoo weliba wasiir ah, ina adeerkii oo kursigaas ilmaha iskaga biilanayay. baarlamaanku shaqo fiicanna shaqana ma qabtaane waxbay qabtaan, anu hadda dhiiba mahaye, ayaa laga qaatay. Nairobi buuna ku sugan yahay ninka kursigaa kusii fadhiyay. dadku waa inay sidaa horta ula socdaan. isagiina waa hadlaya. doorashada laynay sheegina doorasho ma dhicine, ninkan baa la siiyey. 2 nin ee kale markii meesha la istaagay hoolka oo aan la gaarin baa codaynba aan la gaarin, anagu waan casileen baa leeyahay. ninkan baa warqadda hore laga siiyay heshiis beenay. way inta markaan kaga imaano arrintan doorashada loo ekeysiyay, waxaa jiray maalmihii dambe khilaaf xoogan oo ka dhex taagan tiimkii madaxweyne xasan ee meesha ka saaray madaxweynihii koonfur galbeed Cabdicasiis lafta gareen. tiimkan iyaga dhexdooda waxay isku haysteen qofka qabanaya hoggaanka koonfur galbeed. si weyn ayaa horta la iskugu haystay. madaxweyne xasanna ushu meel bay uga jaray. hase ahaatee warar goordhow soo dhacayo ayaa sheegaya in is-afgarad hordhaca laga gaadhay. madaxweyne xasanna uu ogolaaday soo jeedintii xubnahaasi reer koonfur galbeed ee madaxweyne xasan safkiisa ku jiray ee iyagu doonahaya markaas isku haystay cidda qabanaysa kursiga ama hoggaanka ugu sarreeya maamulka koonfur galbeed. waxay wararka hadda soo dhacay sheegayaan in guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe ninka la yiraahdo waa ansax master ansax ninka loo bixiyey in ay isku raaceen inuu noqdo hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ee 5 sano soo socota. madaxweyne xasanna waa aqbalay bay leeyihiin, walow aan war rasmi ah oo sax laga haynin, laakiin wararka hoose waxay leeyihiin madaxweyne xasanna waa ogolaaday master ansax inuu qabto kursiga ama hoggaanka talada koonfur galbeed. waa kow. raggii markay isku haystay way fara badnaayeen sidee loo kala maareeyay. master ansax waxaa la yidhi adigu hoggaanka koonfur galbeed qaado. waa qodob. waa qodobka labaad ee ninka la yidhaahdo cabdiqaadir maxamed nuur wasiirka dekedaha oo ragga ugu saamaynta badan ka mid ahaana waxaa la yidhi TikTok oo adigu waxaad qaadataa
gudoomiyaha golaha shacabka halka gudoomiyaha golaha shacabka shanta sane soo socoto noqo baa layidhi waa qodob labaad waa ku qancay isagana waa qodob saddexaade ninka la yidhaahdo la tartamayey aad ay iskugu haysteen lafta gareen ragga kale mid waxaa la yidhi gudoomiyaha koonfur galbeed baad adigu qaadanaysaa mid waxaa la yidhi waxaad qaadanaysaa wasiir baad qaadanaysaa lagu siinayaa mid waxaa la yidhi waxaa lagu siinayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad baa lagaa dhigayaa duqi xasan haddii xil isagu waayi mahaye xilma waayaa la yidhaahdaaye xiluu magacaabo iyo wuxuu u sheegay waayi mahaye raggii horta waa la kala fadhiisiiyey khilaafkana hadda hoos buu u dhacay walow heshiis rasmiga aan la gaadhin laakiin hoos buu u dhacay damac badan baa la yidhaahdaa oo waxa weeye sadanadu way dhib badan tahay waa suuragal rag badan oo isbedelay in la helo sidoo kale magaalada baydhabo waxaa ku sugan mas-uuliyiin mucaarada oo ayagu doonaya inay u tartamaan kursiga madaxweynaha si weyn uga soo horjeeda hanaanka madaxweyne xasan uu wax wado ayaa ku sugan magaalada baydhabo oo si weyn uga biyadiidsan qorshayaasha socda iyadana waa saameyn kale oo magaalada baydhabo ka taagan si kastay noqotaba magaalada baydhabo xilliga loo jideeyey doorashadeeda waa waqti yar baa ka dhiman 28 bishan ayaa la yidhi waa maalmo kooban madaxweyne xasanna weli waxay sijaayadu u taallaa magaalada baydhabo halkaas oo markaasi uu ku kala hufayo ama ka hirgelinayo hanaankiisa doorasho ee markaasi uu doonayo koonfur galbeed inay ka dhacdo